Roob mahiigaan oo 24 saac la soo dhaafay ka da'ayay Puntland ayaa gooyay laamiga isku xira magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe. Daadad xoog leh oo ku soo rogmaday laamiga ayaa jaray meel u dhow buundada Midigar ee degmada Dangaroyo, taasoo 2013 ay jareen roobab ka da'ay Puntland. Labada dhinac ee wadada ayaa waxa ku xaniman gaadiid ka kala yimid magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe. Socdaal aan ku tagnay halka ay biyuhu jareen ayaan kula kulannay qaar ka mid ah gaadiid iyo dadweyne ku xanimay go'itaanka laamiga, waxaana ay nooga warrabeen xaaladda goobaha ay biyuhu jareen. runtii waxaan soo aragnay buundada oo go'an, wadadii oo biyo badan ay marayaan aad moodaysid tog inay tahay. waxaan meeshu aadna gaari wadada ka dhacay oo uu arki waayay meesha laamiga uu ka go'ay, kadibna waan ka soo saarnay. marka dhibaato baahsan baa meesha ka jirta, wadadana sidaas ku go'antay, magaalada sidaas go'an u jiraysaa bas. buundadii tii hore la dhisay inta ka dambayso dhan way go'antay, xaggaana waxa kama iman karaan, waxna ma gudbi karaan. waa baabay laami ma jiro, ilaah waa maqan dadka. laamiga go'an, buundadii hore la sameyn jiray kharashka badan ku baxay, wixii xagga ka jiro way go'antay, laami ma jiro. ya buundadii soo ka caafimaad ku tahaa. roobku waa da'ay, wadanka war badan lagama hayo, laakiin waxyaabo badan waa la sheegayaa, khasaarayo way jiraan, laakiin alxamdulillah rabbil aalamiin waa mahad leh. soo jeedaan laamiga biyo dul maraya, meeshaan aan joogno wixii dhinaca ka lama mari karo, war lagama hayo laamigu sidoo wax u qabo. laakiin anaga inta aan ka aragnay meel kasta biyahaas baa marayay, ilaahay baa looga xamdinaqay alxamdulillah rabbil aalamiin. waxaan ugu baaqayaa dadka wadada ku safraya ama wadayaasha gaadiidka inay taxadar sameeyaan wadada, maadaama ay tahay aan war laga hayn. dawladda kale inay kaalin ka qaadato, ay checkpointi u sameeyso wadada si looga taxadaro, aan khasaaro u yaraado. dadka xoolo dhaqatada inay meelaha godan ka baxaan oo xoolaha aysan faafin inta cirku daayo. marka alxamdulillah rabbil aalamiin dadku waa taxadareen. hadda halkaan aan taaganahay waa hul laamigu, marka ilaa iyo 7 kiiloomitir intaan ugu soconay laamigu saas iyo si kala leeyahay weeye. hadda anagu intaan hadda xaadir ka ahayn, saakin markaan meeshan magaadiidku way imaanay ma laabanay, laakiin markii loo ogaaday inaan meesha la mari karin oo xaaladeedu ay tahay serious, baabuur badan oo waliba xamuul u badan baa laabatay. hadda kuwa badan baa taagan, insha Allah meel ay maraan ma hayaan. waxaan isleeyahay qiyaastii 7 kan adigu meel mara male baan isleeyahay, saan aaminsanahay. saaxiib marka wadanka waa aragtaa say wax noqdeen. intaan harta anigu arkayay waxa ila biyo badan roobkii buuntada gooyay Midigaraad. hadda meeshaan joognaa waa qalqalooc Midigar ka sokaysa xag dhig garo ka xigta 6 kiiloomitir. ayadan waad aragtaa biyaha duulaya meesha oo maraya, wali biyo inta laagna ma aan arag. waxa weeyaan dadka iyo dunyadana wali hadda fiican loo warhayo. waxaan marka waxa u baaqo jeedinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, muslimiinta, bahda dhalinyarada ama dadka caburka oo xoog leh, iyo dhammaan dawladda. dadku dawladdu leeyahay, dawladdu waa inay ka taxadaraan. hadda laamigu waa aragtaa waa go'ay suu yahay, waa aragtaa waxa weeyaan cid checkpoint ama dawladda ama jaala ama gaarida celinaysa male. hadda waa aragtaa gaadiidkii waa dhex maraya ayadoo saas xaalad tahay, laamiga war lama hayo. waxa weeyaan marka dawladda wax ka codsanaa baaqan u dirna waxa weeye inay dawladdu arrinta fiir gaar u yeelato oo hawsheeda guurto, hawsheeda aysan gabin. shacabkuna waxa u baaqaynaa in la isku gurmado oo wadanka dadku wax gaareen waxa weeyaan dadku muslimiin isku gurmado wixii aan wax gaarin laga warhayo. roobkan xoog gale oo 24 saac la soo dhaafay ka da'ayay deegaanada Puntland ayaa daadad ka dhashay waxa ay jareen laamiga isku xira Boosaaso iyo Garowe, waxaana ay xanimeen isu socodka gaadiidka magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe iyo inta u dhaxaysa. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Universal TV, Garowe.